السلام عليكم. waxaan doonayaa inaan halkan kugula wadaago fikrada aad u kooban taas oo aynu ka soo xignay muwaadiniin Soomaali ah. Jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland 30 sano ayay ku noolaaneysay dimuqraadiyad, nabad iyo xasilooni. meel walba ay joogto Soomaali ma kala maaranto oo haddii ay kala go'go'do waxa imanaya in cadawgu ka faa'iideysto kheyraadka dalkeena. kuwaas waa laba fikradood oo ay isdhaafsadeen laba ruux oo ka soo kala jeeda Somaliland iyo Soomaaliya. haddaba su'aasha isweydiinta mudani waxa weeye haddii labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya ay noqdaan laba dal oo midooba hal midna ah maxaa dhacaya? kadib baaritaan dheer aan sameeyay waxa aan helay fikrado isiinaya jawaabo aad u qaalisan. fikradda koowaad, haddii ay bulsho meel isugu tagto waliba ay aad u farabadato laba maamuli karayo, sidaa daraadeed waa in qurub laga dhigaa si loo helo maamul cidoon. haddii ay bulshadu noqoto mid waxa badanaya guulaha waxana yaraanaya guuldarrada, waxaana aynu ka mid noqonaynaa dalalka ugu horeeya barwaaqa sooranka. fikradda saddexaad, waxa laga mid yahay dhaqanka Soomaaliga iyo afka, laakiin lagama mid aha dowladnimada sida caalamkuma ay yihiin. fikradda afraad, Soomaali intay mid tahay ayay wax tahay, haddii ay kala go'dana sidaas ayay ku noqonaysaa dad burburay. fikradda shanaad, Jamhuuriyadda Somaliland iskeed ayay wax u qabsatay una qabsanaysaa, cidna uma baahna, midnimana ma doonayso. tani waa fikradeydii, bal hay noo dambeeyeen midnimada iyo is soo raacidu, balse wax walba bulshada dhex yaala waa in loo kala cadeeyo, waa in wax walba miiska saaran marka hore sidooda loo dhameeyo, laakiin aan ugu horeynba midnimo lagu hamiyin. intaas ayuu ku egyahay fiidiyogeena maanta. nagu soo biir fikirkaagana xagga hoose noogu reeb.